gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Marwa Nasra Qaliyax iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee Naaw ee gobolka Togdheer Ismahaan Jaamac Taneeg Gawhara Maxamed Cawad Xalima Cabdi Sahra Caydhaaf Deeqa Weydaar oo dhamaantoodba kamida xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen hotel Nasteex ee magaalada Burco waxay si weyn uga soo horjeesteen qaabka loo soo xulay gudida campaign-ka ee gobolka Togdheer waxaana hadaladoodii kamid ahaa halkan anaka oo ku fadhina lafdhabartii xisbiga kulmiye waxaan aad iyo aad ula dareem qaatay haweenka gobolka Togdheer oo saamigii ay ku lahaayeen aan ka helin oo la yaabatiin ay ku noqotay oo wax iga weydiiyay xitaa in aniga la weydiiyay oo la yiri yaa ku fiican oo lagu daraa oo aan wax wara ka haynin aan ku naxay maxay heeto yeerista shaashada laga naadiyay aan ku naxay taasi waxay mushkiladii guux badan ku abuurtay haweenkii gobolka Togdheer haweenka halkan fadhiya la'aantooda waxba ma qaban karo maanta halkan waxaan soo fadhisay anigoo ah gudoomiyaha ururka qaranka ee Naaw ee gobolka Togdheer golaha dhexe kulmiyana kamid ah waxaan kala garan weynay in nalaga maarmay oo aan la rabin oo aan xisbigan ka hadlaynaa maanta arrinka xisbiga waayo waxaan ku jirnaa waqtiyadii ugu xasaasiga badnaa iyo in dad maxay dhahdaan nala doonayo waan kala garan weynay inaan nala doonayn haddaan nahay xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer haweenkiisa annagoo waliba aan intayadan ahayn ee ku hadlayna afka gobolka Togdheer haweenkiisa oo dhan haddaan hay gudoomiyaha Naaw xalay hablihii iscasilay laftooda waxa isku casileen waxa aan ku hadlayno miidhan maanta waxa la yidhi ninba mahmaahayo wuxuu yidhi baadida ninba kula daydayada la ka badane si aan doonahayn inaad heshaan daayina bidkaay waxaan u sheegayaa gudoomiyaha kulmiye madaxweynaha mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi waxaan u sheegayaa masasba qorta kuugu maran halkii salebaan gaal sheegay ilaa aad iska furfurto inaan waxba ku hagaageen annagu waa siday hablu ku sheegeen baan ku raacsanahay waxaan ku sheegaynaa annagu maanta xisbiga ma lihin waan ka yaacinaa balse waa nala hagraday waa nala yasay waa nala dhaafay kuwa xubnaha ka ah iyo annagoo taageerayaal ahayn oo islahayn alla ilaahay maanta irmaanatay maandeeq oo adhiil weyn baan soo tolanay muuso waxaan halkan maanta isugu nimeen shirkin jaraa'id qabanayna haweenkayagan ka tirsan xisbiga kulmiye in badanna soo ahaa annagoo ah ka tirinta xisbiga in badan soo halgantay taariikh dheerna soo ahayn imikana ah waxaan ku hadlaynaa afka haweenka mas'uuliyiin fara badan meesha waan ku fadhinaa waxaan qadacnay qaybsashadii saami qaybsigii campaign-ka xisbiga kulmiye ee la qaybsaday ee lagu qaybsaday gobolada Soomaaliya loo qaybiyo gobolada Somaliland haddaanu roolkaanu kala hayn kamaanu helin haddaanu nahay saraakiishii xisbiga kulmiye gobolka Togdheer laakiin waxay taxagaana ka gaana maxaa yaala halkan waxaan ka cambaaraynayna oo cambaarayn badan dusha uga tuurayna oo aanan ka gaabsanaynin oo hablu malaw ay ka gaabsadeen aanan ka gaabsanayn Cabdikariin Xinif waxa weeyaan ninkii nagu karbaashi jiray Muuse Maxamed Kaahin ka hadha ee nagula dagaalami jiray ee dhasbiinkana dhigi jiray ee oran jiray waxay isla taagtay Muuse Biixi waxay isla taagtay ninka la yiraahdo Maxamed Kaahin waa ayaan dar horta Maxamed Kaahin maanta hadduu Muuse Biixi hadduu noo maqlo ninka la yiraahdo Cabdikariin Xinif oo wax noogu soo dhiibo horta waa ayaan daro Maxamed waxaan leeyahay inaadeer ka fiirsan ninka waa Cabdikariin oo waad garanaysaa wallahi horta waxaan nasiib darra anagu maanta kama xumin guddi kaambe kuwii maanta ka hadli lahaa tamabanihiinba 2003 ayaan gudidan ku jirnay gudidan campaign-ka ee gobolka waxaan ahaan lahayn kuwii wasiirada iyo DG-yada ay noqon lahaa isla u fadhan laabaan laakiin ilaa ay maalintii xisbiga la aasaasay 2002 ilaa ay maalinka maanta waxaan ku no credit waxaan ayaan darasiya labaad maanta oo mar kale soo qaadaba la oranayo anagoo isle xisbiga waxa tihiin indhihiisi waxa tihiin dadkii ugu cadcada markaan meel waa la riixo waan riixi weyne ma riixmayno mana tagayno xisbigana waxa ku jira naftayda iyo maalkayga xoogayga xoolahayaga waa yaala Xasan Salebaan ayaa la BM telefishinka caalamiga Somali News magaalada Burco.